واتاي داودايال هادبا وزيرka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Dr. Saad Ali Shire oo haatan ku sugan Chatham House mar dhawaan ka soo baxay ayaa khadka taleefanka aan doonaya bal inaan kaga wareysto qodobadii maanta uu ku soo bandhigay institutionka caalamiga ah ee ku yaala magaalada London oo ah goob ay madaxweynayaashu ay isugu yimaadaan iyadoo daraad uu madaxweynaha wadanka Kenya uu ka hadlay maalintii ka horeysay madaxweynaha wadanka Gambia maantana ay ahayd maanta maalintii delegationka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland fursada loo siiyay bal in ay halka ay kaga hadlaan Dr. Saad Ali Shire ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliland warkiibaana barnaamijkani uu yahay bal wasiir waxaad nooga warantaa maanta kulankan ka dhacay Chatham House ee aad khudbada ku soo bandhigtay muxuu ku saabsanaa marka hore waan ku salaamayaa dhageystayaashana waan salaamayaa hadalka maanta aan ka jeediyay Chatham House oo runtii meel caan ah oo Ingiriiska caan waa wuxuu ku saabsanaa afar qodob ku saabsanaa qodobka hore wuxuu ahaa ahmiyadda ay Somaliland ay u leedahay international relationska iyo international politicska kalabaadna waxa xiriirka naga dhaxeeya ninka wadamada jaarka nahay kalena waxa xiriirka naga dhaxeeya ninka Soomaaliya ka u dambeeyana waxa xiriirka naga dhaxeeya ninka Imaaraat iyo wadamadan ku yaala gacanka Carabta markaas caadada wasiir waxa uu kulankan ku soo beegmay waqti aad adiguna aad ku sugantay magaalada London qodobada marka aad kaga hadashay imika dhinacan imika Imaaraadka oo kale waxa weeyaan waa arinta imika ugu xiisaha badan ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland si weyn uga qayb qaadatay qodobka maxaad kaga hadashay ciwaanka waxa looga dhigay istiraatiijiyada partnershipka aad la leedihiin hadda Soomaaliland bal iga waran qodobka isaga qodobka waxaan kaga hadlay cilaaqaadka naga dhaxeeya inaka Imaaraadka heshiisyada galay inaka DP World iyo heshiisyada galay inaka dawladda Imaaraadka ayaan kaga hadlay waxa ka runtii aan ka waadixiyay in heshiisyada galay ay qayb ka ahaayeen inaka iyaga oo cid saddexaad aan jirin oo inagu weelisay arrinka sidii mataqaana ku jirtay social media ayaamahanba arrinkaas runtii waa waadix weeye waa cid kale oo saddexaad وأولو لهين هشيسة كقشة من أمورها Somaliland ما جرت. marka qodobka aad baad uga hadashay imika waxaad carabka ku dhufatay arrimaha social media-da been abuur fara badan oo la sameeyay marka saacada wasiir aad aragto qodobadan aad kaga hadashay maanta Chatham House-ka xiriir intee in leeg bay u sameynayaan in la fahmo siyaasadda Somaliland ee ku wajahan arrintan golofka iyo arrintan gacanka cadmeed intaba runtii waxaan rajeynayaa inay mataqaana dadka u waadixiso hadalkii uu dadka u waadixiyo u cadeeyo mowqifka Somaliland iyo nooca heshiisyada galayna kala tigeeno mataqaana waan rajeynayaa runtii inay noqdaan kuwo inakana faa'iido noole dhinacba marka laga eego dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca istiraatiijiyadda gobolka laftiisa runtii faa'iido u leh oo guud ahaanba inaka maxay dhahday cidda heshiiska la galay iyo gobolka labada dhinacba maxay dhahday badacas haddii dawlado kale ay xiiseeyaan in ay sidoo kale ay ka sameystaan Somaliland sida Djibouti oo kale dawlado fara badan ba hadda isugu tagay iyadana ma u furan tahay mise Imaaraadka kaliya ba Somaliland heshiiska ay la gashay dhinaca militariga wallahi cid ka soo arrin oo timaado arrinkan oo yimaadaan way leeyihiin hadii faa'iido inuu leeyahay dawladdu qaadanayna hadii faa'iido waxayna qaadanayna waxa dadka ka fadhiyaan saareen ugu dambeyntii ka soo qaybgalayaal fara badan ayaa maanta dhageysanayay ugu dambeyntii maxaad shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaysaa ee ku saabsan arinta Imaaraadka iyo heshiiska weyn ee maanta ina dhex yaala runtii waxaan doonayaa inaan waadixiyo shakiga laga muujiyay social media iyadoo la soo xiganayo hadalkii wasiir dawladda arrimaha dibadda Imaaraadka ee oranayay maxay jiray tafaahum aan baynu jiray ka qaybgal heshiisyada galay oo ka qayb gashay Soomaaliya amba madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay annagu inta noognahay cid kale oo ku jirtay heshiisyada oo aan hayn labadeena daraf ma aan jirin meel kale oo saddexaad oo runtii ku qoraa oo la saxeexay runtii ma aan jirin arrin buu labadeena noo dhaxeeyay heshiiskan galayna waxa weeye waa mid labadeena noo daneynaya oo heshiis daneed weeye marka in sida lagu kalsoonaado loo ogaado ayaan doonayaa ugu dambeyntii safiirka u qaabilsan dalka Britain Soomaaliya iyo Somaliland la fahantiisu aad buu soo dhaweeyay heshiiska DP World iyo dekada berber ka socda dawladda Britain qodobka maxay u aragtaa baad u malaynaysaa
waxaan rajeynayaa cid walba inay soo dhaweynayso wixii dan oo ah dadkeena heshiiskaas waa heshiis dhaqaale weeye waa heshiis shaqo abuur weeye heshiis maalgashi weeye marka runtii caalamka oo dhan inuu soo dhaweeyo weeye cid kasta oo dan kale horumarka Soomaaliland guud ahaanba nabadda iyo maxaan idhaahdaa horumarka bini'aadamka guud ahaanba cidii danaynaysa waa inay tahay inay soo dhaweyso waxaa runtii la yaab lahaa in mataqaana Soomaaliya ay arrinkaa ay soo taagtay namba ay ka muujisay maaragtay jiidma ay ka muujisay waa arrin runtii waa la yaab leh waa wax wanaagsan in cid walba soo dhaweyso aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Sacad Cali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo ku sugan agagaarka Chatham House goobta uu khudbadda wasiirku ka jeediyay aad baan kugu mahad celinayaa wasiir waqtigaaga aad na siisay adiga mudan